ما لو يدو بكران ممكن حمر جوجو هويه وشلنكم راسنيان وحكى لنا راسنين هذا بين ما بدوني أن دولة ما يحب دوني هنا دكتة ما تبي حيابها كسماها تي وحور واحد كلمة دكتة أربعة كده هنا لودي واحد كلام مرة ما سلاماتكم بيبدأ لي وكم دلالك أوين سياسة جيسك أفريقيا marka laga hadlo taariikhdiisa waxay leedahay laba waji oo kala gedisan mid waa kan uu dadka isaga gado ee afmacaanida wata halka midka kale uu yahay saafsi hoose wax u jiraysa Faarax Macalin Dawaare marka la maqlo magaciisa oo buuxa waxa durbadiiba qof kasta oo garanaya ku soo dhacaysa inuu yahay siyaasi jecel inuu meel kasta ka muuqdo isla markaana ku hadlo wixii uu doono oo markaasi afkiisu uu soo qabto sida aan wada ognahay hore wuxuu u ahaa gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka waddanka Kenya waxaana tan iyo markii uu jagadaasi baneeyay uu ku dhaxmilmay siyaasadda Soomaalida isagoo hadba eedeeya siyaasigii loo adeegsado dad badan ayaa isweydiinaya sababta Faarax uu siyaasadda deegaankii laga soo dooran jiray u hilmaamay misana ugu dhaxlaban yahay siyaasadda Soomaaliya maxaa jira Faarax Macalin waxa uu ku fashilmay saddexdii doorasho u dambeysay tartanka kursiga deegaanka la yiraahdo Lagdera oo ah deegaanka laga soo doorto kadib markii bulshada ku nool deegaankaasi ama goobahaasi iska diideen siyaasadda Faarax ee aan ku dhisnayn wax qabadka waxana sida muuqata guldarooyinkaasi ay bideen Faarax inuu noqdo dulaal dhinaca siyaasadda loo adeegsado tusaalena waxa kuugu filan dulaalnimadiisa labadii dowladood ee ka horeysay madaxweyne Farmaajo Faarax wuxuu ahaa mid fagaare kaste wax uga sheega dowladii Sheekh Shariif Sheekh Axmed inta la og yahay wuxuu u geystay aflagaadooyin aan ujeedo lahayn isla markaana xanaf qabyaalad ay ka muuqatay halka dowladii Xasan Sheekh lagu xasuusto hadalkiisii aan ka fiirsiga lahayn ee ahaa kulbiyow mar dambe looga talin maayo xamar marka ma dhici doonto mar dambe in xamar laga taliyo oo ninkii jooga kulbiyow xamar ma aragtay oo haduu rabo inuu leeyahay dhinaca kale Faarax Macalin wuxuu mar kasta sheegi jiray in dowladda Itoobiya tahay cadawga ummadda Soomaaliyeed isla markaana siyaasiyiinta Soomaalidu kaba qaad u yihiin madaxdooda sanadkii 2007 Faarax Macalin wuxuu sheegay in Soomaaliya u dhalatay dowlad ka madax bannaan fargelinta Itoobiya isagoo taageeray dowladda madaxweyne Farmaajo hogaaminayo laakiin waxa isweydiin mudan Faarax Macalin caybka uu Itoobiya u qabay uu sheegi jiray madalaalnimadiisa ayuu ka waayay mise wax kale ayaa jira bal ilaa qodobadan xukuumaddii uu taageeray misana uu ku tilmaamay mid ka madax bannaan fargelinta Itoobiya waxay samaysay qaladkii ugu weynaa ee taariikhda kaas oo ay muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax ugu gacan gelisay cadawga Itoobiya Faarax Macalin maalinna kama uusan hadlin dhiibistii shakhsiga Soomaaliga xilli Soomaalida oo dhan ay ka gilgilatay markii muwaadinkaasi la soo daayay wuxuu kaga hortagay airportka Nairobi isagoo kamid ahaa Soomaalidii soo dhaweysay laakiin wuxuu watay qorshe kale oo halis ku ah qalbi dhagax isagoo markaasi wakiil ka ahaa dowladda federaalka si loo laaluusho Cabdikariin oo lacag $3 milyan oo dollar ah loo siiyo isla markaana loo daboolo fadeexadda kooxda Farmaajo ku habsatay Itoobiyadii uu madaxdooda madax badan u aflagaadeeyay ayuu caasimadooda ka degay si uu dalaal ugu noqdo siyaasadda isbedelaysa ee Soomaali galbeed isagoo ugu dambeyn qayb ka ah dhismaha maamulka cusub hadda waxa soo baxaysa qeyladaan ka imaanaysa dhinaca jigjiga iyadoo bulshada ku nool magaaladaasi ay durbo qeyladaan ka keeneen siyaasadda kala qoqobka ku dhisan ee Faarax Macalin la tagay aagaasi isagoo bilaabay hanaan aan horey uga jirin deegaanka ee ah qof iyo qabiil taasoo dadka siyaasadda falanqeeya ay ku sifeeyeen mid isku diraysa bulshada ku nool dhulkaasi arrinta uu hadda jigjiga ka wado horay ayaa mid lamida loogu eedeeyay markii uu qas ka dhex bilaabay kursiga Gaarisa isagoo markaasi beesha uu ka soo jeedo dhaafiyay kursiga ay xaq u lahaayeen xigmad Soomaaliyeed ayaa oranaysa ninna caadadii ma daayo bahalna cayriinka ma daayo bal aan aragno siyaasadda dalaalnimada ku dhisan ee Faarax Macalin uu ka wado Geeska Afrika halka ay ku dambayso